نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. القصص النبوي قصوينك نبيذا. waa qaybtii labaad qisadii nebi muuse calayhi salaam. qaybtii koowaad waxay inoo joogtay iyada oo nebi muuse uu alle ku amray inuu u tago fircoon uuna gaarsiiyo fariinta kaga timid xagga alle, iskugana sheegana inuu yahay nebigii alle iyo rasuulkiisa. saa markii nebi muuse calayhi salaam uu xaqiiqsaday in loo diray fircoon, ayuu alle weyna weyddiistay in lagu daro walaalkii haaruun. allana waa uu ka aqbalay dalabkiisa ahaa in la raaciyo walaalkii. wuxuuse alle mar kale u sheegay nebi muuse iyo haaruunba in ay u tagaan fircoon unala hadlaan si dabacsan oo aanan kibir iyo isla weyni ku jirin. waa intaas uu soo hanuunaae. idhabaa ilaa fircawna innahu tagaa. aada oo u tagaa labadiinna fircoon. xaqiiqdii wuxuu ka tillaabay xuduudaha alle, kufri iyo macaasina ku dhaqmay, iyo isla weyni iyo qaa'inimo. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. unala hadla isaga fircoon ah si dabacsan oo aayar ah. waa intaas oo uu qaataa waanada ama ka cabsadaa alle. aayadda dambe waxay muujinaysaa in qofka dadka gaarsiinaya fariinta alle looga baahan yahay inuu dadka u waaniyo si dabacsan oo aayar ah oo aanan kibir iyo awood sheegasho aan ku jirin. nebi muuse calayhi salaam iyo walaalkiisa haaruun markii uu alle amar ku siiyey inay u tagaan fircoon, ayaa waxaa labadooda gashay cabsi daran oo ay ka baqeen fircoon. maxaa yeelay fircoon wuxuu ahaa mid dadka si daran u cadaaba. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرض علينا أو أن يطغى. waxay yidhaahdeen, rabbigayagow, xaqiiqdii waxaan ka cabsi qabnaa inuu ku degdego ciqaabtayada ama inuu inagu xadgudbo. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. alla weyne wuxuu ku yidhi, ha baqinina, xaqiiqdii aniga ayaa idinla jira labadiinnaba oo maqlaya oo arkayana. cajiib! nebi muuse iyo ku-xigeenkiisa haaruun calayhi salaam markii ay heleen garab iyo ballanqaad midkii ugu wanaagsanaa adduun iyo aakhiraba, oo ah inuu alle la jiro oo maqlaya islamarkaana arkaya waxa meesha ka dhacaya, ayay markiiba waxay u soo jihaysteen dhankii fircoon, iyagoo aanan wax yar oo cabsi ah ka qabin xagga fircoon. markiiba waxay u yimaadeen fircoon oo kursigiisa ku fadhiya, oo hareerihiisa ay fadhiyaan sixiroolayaashii isaga la shaqaynayey. saa markii ay u yimaadeen oo isugu sheegeen cidda ay yihiin oo ah rusushii alle, fircoon wuxuu si fiican u garanayay muuse calayhi salaam. maxaa yeelay muuse wuxuu ahaa mid ku soo koray gurigii fircoon. nebi muuse iyo walaalkii waxay fircoon ka dalbadeen in uu raaciyo reer bani israa'iil si ay diinta islaamka u qaataan, islamarkaana uusan cadaabin islaamnimadoodii kadib. intaasi kadib waxaa nebi muuse calayhi salaam iyo fircoon dhex martay dood aad u kulul. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. fircoon ayaa hadalkii qaatay oo ku yidhi, muusow ma waanan ku keenin dhexdayaga, yacnii gurigayaga, adigoo ilmo yar ah oo aadan nala joogin sanooyin cimrigaaga ah innaga. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. oo aadan falin falkaagii aad fashay, yacnii dembigaagii ahaa inaad dishanin,
waxaad tahay mid ka mid ah abaaldhacayaasha. fircoon wuxuu muuse calayhi salaam soo xasuusiyey inuu ku soo koray gurigiisa isla markaana uu ku noolaa intii uu alle u qadaray. kadibna uu muuse ka cararay gurigii fircoon markii uu muuse uu feeray mid ka mid ahaa dadkii qibdiyiinta oo feerkaasi dartiis uu u geeriyooday. fircoon wuxuu bilaabay inuu nebi muuse ku mana sheegto oo ku yidhaahdo waxaas ayaan kuu soo qabtay. si kastaba ha ahaatee nebi muuse wuxuu fircoon ku yidhi waxaa mahad iyo ammaan leh allaah rabbiga caalamiinta oo dhan. ليس غير الله ربا للعباد. saa fircoon oo kibirka iyo qooqa uu dilay ayaa soo booday oo ku yidhi muuse muxuu yahay rabbiga aad sheegayso. qaala fircawn wamaa rabbulcaalamiin. fircoon wuxuu yidhi oo muxuu yahay rabbiga caalamiinta dadka jinka dhammaan waxa uunka jooga maamula. qaala rabbu الsamaawaati waalardi wamaa baynahumaa in kuntum muuqiniin. muuse wuxuu ku yidhi waa rabbiga cirarka iyo dhulka iyo dhammaan waxa u dhexeeya iyaga haddii aad doontana in lagugu qanciyo wax yaqiin ah oo la taaban karo. dabadeed fircoon wuxuu u jeestay wasiiradiisa duqaydii iyo dadkii kala joogay rugta xukunkiisa oo si jeejees ah ku yidhi ma maqashaan wuxuu u leeyahay muuse. qaala liman xawlahu alaa tastamicuun. hase yeeshee muuse calayhi salaam ma ahayn mid quusta oo ka carooda hadalkii fircoon wuxuuna isagiina u jeestay iyagii odayaasha ahaa oo ku yidhi rabbigiin iyo rabbiga aabbayaashiinnii hore. qaala rabbukum wa rabbu aabaa'ikum alawwaliin. fircoon wuxuu aad ugu carooday muuse rabbiga uu sheegayo wuxuu doonayey in muuse isaga fircoon uu ilaahnimo u aqoonsado laakiin nebi muuse middaas waa uu ka diiday una sheegay in allaha dhabta ah ee xaqa lagu caabudo ay tahay inuu yahay allah caza wajal. ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ليس غير الله ربا للعباد. markii uu fircoon arkay inay u caddaatay dadkii oo dhammi inuusan waxba u gudin iyaga waxna gelin waxna abuurin irsaaqin talana u hayn iyaga ayuu wuxuu u jeestay inuu muuse handado oo uu awood u sheegto isla markaana uu tilaabo ka qaadi doono haddii uu yeesho taliye ama ilaah aan isaga ahayn. qaala lain ittakhadta ilaahan ghayrii laajcalannaka mina almasjuuniin. fircoon wuxuu yidhi haddii aad doorato ilaah aanan ahayn aniga waxaa hubaashii kaa mid yeeli doonaa inta xihan yacnii maxbuus kaa dhigi doonaa. qaala awalow ji'tuka bishay'in mubiin. muuse wuxuu ku yidhi ma xitaa haddii aan kuu keeno wax cad oo aad ku qanacdo. qaala fa'ti bihi in kunta mina as-saadiqiin. fircoon wuxuu yidhi keen haddaba haddii aad ka mid tahay runlowyada. nebi muuse calayhi salaam markii uu arkay fircoon oo doonaya caddayn ayuu wuxuu markiiba tuuray ushiisa oo markiiba waxay noqotay mas halaq ah oo ordaya oo dadkii meesha jooga waa ay ka yaabeen. markaasuu haddana gacantiisii ku nabay goshiisa misna waxay noqotay mid cad oo iftiimaysa. sidaasi oo ay tahay fircoon ma beddelin habdhaqankiisa oo ma joojin inuu sheegto inuu yahay taliye cid ka saraysa aysan jirin iyo ilaah aan la caasin karin. wuxuu ku andacooday in waxa muuse uu la shir yimid wax kale aysan ahayn sixir iyo xeel beenlow ma ahee.
قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم fircoon wuxuu ku yidhi duqaydii hareerihiisa joogtay xaqiiqdii kani dhab ahaantii waa falanfallow xeel dheer wuxuu go'aansaday inuu kaga hortagay muuse sixir la mid ah markaasuu u cidirsaday dhammaan sixiroolayaashiisii ku noolaa boqortooyadiisa inay u yimaadaan isaga fircoon ah sida noogu imaan doonta qaybta saddexaad ee barnaamijka insha allah نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين القصص النبوي qisooyinka nebiyada